marka waxaan ka bilaabaynaa sababtu uu ninkii sameeyey marshall wuxuu sababtu u doortay wolf iyo grapha wolf maadaama waddankeena laga helin waxaan ku bedelina annaga inuu yahay yi ama eyga markaa jooga ah graphna waddankeena waa joogaa geriga waddankeena uu joogaa okay laakiin meeshataas waxaa waaye sabab muxuu u doortay muxuu wolf u doortay muxuuna grapha muxuu u doortay gerigi maxaa sabab haddaan ku horeyno wolf yacnaha wuu dagaal badan yahay xayawaankii ayuu cunayaa geriga waa xayawaan nabadeed xayawaanka kale ma dhimo sababta u dhimo waxay tahay geedka kor u ka cunaa geriga kale wuxuu xayawaan kale uga duwan yahay wuxuu leeyahay wadna weyn sababta wadnihiisa keenaysa waxaa waaye qoortiisaa dheer qoorta dheer wuxuu u baahan yahay dhiigga wax madaxa kor gaarsiiya si taas loo helana waa inu wadnaha weynaada sababtaasa sababta u doortay okay haddaan soo qaadan tusaale ahaan muxuu sal oga dhigay wuxuu uga dhigay 4 tallaabo 4taas tallaabo oo kale ah kow marka horeysa ruuxa inuu fiiriyo dhacdadii dhacday maxay tahay dareenka ruux muxuu dareemay rabitaankiisa muxuu yahay sidee loo samayn karaa marka haddaan tusaale si ogaano horta maxaa muhiim waa inaan ogaano annaga Soomaali haddaan nahay badanaa waxaa naga maqan waa tan xiriir badanaa ma fiirino ruuxan aniga xiriirka aan leenahay maxaa waaye berri ma isku baahnaan doonaa saacadda jumlana ka wada hadalnaa inaan fiirina xiriir teeda kale rabitaanka biniaadamka waxyaalo waxaa jiro ay ka wada siman yihiin iyo waxyaalo ay ka wada simneen laakiin rabitaan kasta waa mid sax ah rabitaan qaldan ma jiro rabitaan wuxuu rabaa ahada kulli wada saxsan yihiin marka aan tusaalahan usoo qaadano bal sida u faahfaahna sidee ruuxa ugu hadlaa sidii yeyga oo kale iyo siduu ugu hadlaa sidii geriga oo kale tusaale haddaan usoo qaadano cabdilmajiid oo gacanta u dooban tahay ayaa noo soo galay cabdilmajiid waxaa weydiinay maxaa kuugu dhacay cabdilmajiid wuxuu yidhi waa degdegsanaa roobna wuu da-ayay waa kufay gacanta waxay iga soo gaaray marka sidee inagu la tahay in aan cabdilmajiid markaas kula hadli karno laba sistam oo kula hadli karnaa mid waxaan dhihi karnaa roobka da-ay xataa uma jiidimiya maxaa la ordaysay ma adduunka orad lagu gaara markaas uma malaynaa cabdilmajiid inuu fikrad fiican na siinayo laakiin haddii aan isku dayno inaan sidii geriga u hadalno oo kale annagoo isticmaalayna 4 qaybood kow maxaa isku dayaysaa inaad horta ka hadashid gacantiisa duuban aad leedahay markaan arkay cabdilmajiid markaa gacantaadi aan arkay duuban waa naxay waa walwalay waa murugooday adaan kaa fikirayay markaa ii sheegtay roobku markuu da-ay markuu qoynaa carare aa ku kuftay aad dhacday dhibaato ku soo gaartay muhiim waxaa ii ah aniga dadka xiriirka leenahay ama wax wadaagno inay mar walba caafimaad qabaan ma isku dayi kartaa fadlan haddaa awood xusunteeda markii joogo wax yarna aamusti tookada ma dhalin fadlan ma isku dayi kartaa tookada dambe hadduu roob da-ay haddaad degdegsan tahay xataa inaada ordin aad tartiib u socotisay dhibaatadan oo kale kuugu dhicin marta faraq u dhexeey laakiin hataa markii dhihi lahaa allah kaa tuura waxma aragti miya roobka da-ay maxaa u ordaysaa wuu xanaaqi lahaa waxaa dhici lahayd inuu adiga jawaab qaladisiiyo inuu xiriirkeena xumaado laakiin hadda maxaan tusay aragtidayda ah waxaa ku dhacay gacantiisa oo duuban dhibka soo gaaday wixii aan dareemay markuu iiga sheekeeyey dhibka ku dhacday waxaan dareemay rabitaankayga u sheegay dadka ila dega meesha dadka xiriirka ila leh inaan jeclay dadka dhan inay caafimaad qabaan waxbaan ka codsaday marka waxaan ka codsaday tookada dambe duu dhulku qoyin yahay xataa si kasoo degsan yahay inuusan ordin si ay dhibaatada maanta kale u dhicin haddii aan tusaale usoo qaadano kale mar walba waxaa ugu adag dhinaca guurka waxaan aadinaa dhinaca ninkii naagtis qaba qoyska nin iyo naagta isqabo labadaba way shaqeeyaan ninkii naagta markay bixaysay way kula darnid waxay tiri adaa iga soo hormaraaye cashada noo sii kale soo adeego waxaad soo gad cashadii noo kale markii ninkii waayihii yiri wuu ka ballan qaaday labadooda shaqada ay aadeen
markii shaqadii aadeen guriga ay gabadha guriga imaatay ay jikada soo gashay waxay aragtay inay waxba karsaneen finjeerkii fiirisay waxba ma soo gadan waa ilar marka xanaaqii ay waxaa ka keenay inay si kulul ninkii oo la hadashay sidii yeygii oo hadashay marka mar walba arrinta waa sidii wax walbo aan ku ballan galno ma samaysid waxaa iiga ballan qaaday inaad soo adeegso casho kariis maxaa u kariso garaweyda cashada yacni ani muhiimkuuma ihi marka muxuu dhahaa marka ninka hadduu sida geriga uu la hadlana nabada imaanaysa hadduu sida iyada u hadasho u hadlana uu asaga gashto bahashan asagoo geri ah laakiinse dhegihii gashto maxay yeygii oo dhahaa naanba waa soo shaqeyna daa wax karsiis karsa ama gaajo weynaysa meesheedan fadhiyaay qaylo badnaa ma falaa sacan ugu qaylsaa ilayo dhinac ii dhaafiyo gabadh iyo haddii uu maxay ahayd sidii geriga ula hadlo marba markuu la hadlaayo uu tan soo qaatay mar walba tusaalada uu dhahaa ina ugu sheegtay mugta inaan soo adeego ha inaan soo adeegay ahayd soo maaha marka guri macnaha inaan soo adeego oo raashinka siin karay ahayd ayada maxay ku dhahaysaa marka qofka dumarka way xanaaqsanta mogta ha yaan mar ku leedahay oo tartiib kulama hadlaysa oo markaa dhahdo aha hadda maadaama shaqada ka imaato waa daalada waa la gaajaysanta soo maaha marka ay ku dhahay maxay daahida ha ay wakiilis bay digaysaa marka ha ila tartiib hoos u digaysaa gaaja ku hayso maxay ahayd raashinna cuntaa jeclaan lahay soo maaha ha ani xataa waa jeclaan lahaa maadaama soo adeegin haddaan biso noo dalba kawa ani xataa gaajooyaysa ka aamusti ala okay ma ficnaan lahayd maadaama si degdeg aan raashin u cunay inaan biso noo dalba ma ima dhahay sooma buuqna wuu yaraana yacnaha mar walba waxaa isku daysa ruuxa siduu u hadlaayay ayay ku xiran tahay yacnaha ruuxa hadlaaya ma aha ruuxa jawaabaya mar walba ruuxa dhigiisa waxa ku dhacayaan jawaabtuu bixiyaa muhiima iyo siduu u hadlo tusaale kale saddexaad haddaan galno hadda waxaan isku daynaa inaan idinkana bal tusaale keentaan ninba ayaa wuxuu shirkad u shaqeeyay madax ka yahay ayaa wuxuu aadeeyey shirkad awgeed ayuu isbuuc wuxuu aaday waddan kale kasoo qaado kale inuu baarliin aaday isbuucu maqnaa uu soo noqday gurigu uu imaaday uu shaqadii u bilaabay habeenkii 10kii isbuuci kalena xaaskii way xanaaqday markuu saa usoo galay may soo noocaysa markii ayada qaarka dumarka markii hadlaya mar walba waa sidii yeygoo kale iyo qaylinaya kusoo gelaya waxay ku tiri kasoo qaad waxay tiri mar walba keligii iga tegaysa guriga mar walba keligii tegaysa guriga waxaa u imaada ma garanayo inaan keligii noolada ii qaatay inta ku noolaan lahaa okay maxaa u malaynaysaa ruuxi markuu sidii geriga u hadlayo marka ilaa markii lahaa si asaga hadduu tan ugu jawaabo nabadima imaanayso naba qaylo badanta mar walba nagu qaylo nagaa daalan shaqa kasoo baxnay hadda wax noo karsana si yadika nagala tag qaylada hanagu dul eedaamin hadduu dhaha yacnaa sheekadu sii xumaanaysaa laakiinse haddii uu isku dayo inaa 40 qaybood a qaadatid gabadhi waxay kuu sheegtay mar walba inay cidla ay dareemayso mar walba guriga keligaa jooga maxaa u imaaday tiri dareenkeeda ka hadashay waxay rabtay marka waa inaa aadaa marka aad dhahda ahaa waxaa ka hadlaysaa miya maalin isbuuci markaan ku maqnaa baarlin ya waxay kuubta meesha ka hadlaysay aad dhahda kelinimaa dareentay miyaa cabsatay rabitaanka مثلا waxaa muhiim ku ah miyaa inaan wada jirkeena mar walba inaan waqtigiis la qaadano ka waran haddii maxay ahayd sabtida ama axadda aan wada aadno shaleemo aan labadiina waqti qaadano aan meel ka soo casheyno yaana ruuxi uu soo degaa marka yaana mar walba si u kacay ruuxi ina soo hadba waxay ku xiran tahay hadba si loola hadlo maxaa muhiima marka kow waxaa aragtay inaad sheegtid dareenkaaga rabitaankaaga xataa mararka qaarkood waa dhici kartaa haddii aada haynin xataa istraajidii ama waxa aada dalbanaysid in adig ruuxii weydiisay adiga say kula tahay inaad asho si asaga tiisa u ogaato mar walba kaaga keliya uga hadla waxaa muhiimkan maxaa waaye xiriirka laba ruux sida uga dhexeeya sida u muhiimana sidii loo qadarina
yaa tusaale loo sheegaya marka thank you fadla markuu markaa hadlaysaan tusaale usoo qaadaysaan isku daya haddaa sidii geriga u hadlaysaan afarta tallaabo marka halka tusaaleenhayo wuxuu yahay aniyo wiil saaxiibkayga wiilka marka kooxdeedu kamid yahay kubadda markasta uu dagaal badan yahay kubaddana foul markasta u dhaca marka hal mar haddii la taabtay si way u dhamaatay khalaas qofkaas waa inay gacanisa saaraan shaqadiisa maaha marka ciyaarta markay bilaabmaysaan u sheegay dadkan la ciyaarnayna dad ajnabi ahay tibet baan la ciyaaraynay marti anaga noo ahay magaalada nooga yimid magaalo kale ka yimid war xasan saaxiib isdeji baad cadho badan tahay dadkaana lacal hadday ku faawlaan aayar u deji xaalada markay wili ciyaarta waa bilaabatay dacdada marka kubaddi waa la ciyaaray nin baa faawlay sidii caadada ahayd markuu faawlay ninkii ba isqabsatay inuu feedho damcay waan kala qabtay kadib anna waan xanaaqay marka aniga sida algerigo lama hadlin ee sida wolfigaan u hadlay sababta sida wolfiga ugu hadlayna waxay ahayd bilaadan baan waan cawday marka hore aan usii sheegay waxaan ku uri markasta waad dagaalantaan markasta waad xanaaqdaa haddii aad mar dambe dagaalito ka bixi garoonkaan ku uri coachkuna meesha u joogo waxaan ku uri waddankeeni ma joogno meel qorbaan joognaa marka meeshaan ku joojinayaa okay lagu sameyna wuu dagaalamaa marka waa in la wada hadla muhiim waa xiriir waa in la meeshu yaalo waa muhiim okay sideen ula hadli karnaa marka annagoo isticmaalayna qaybtan yaa noo sharxi kara oo dhihi kara okay sidii geriga rabnaa inaan uga hadalno ninkan waa in loo sheegaa waxaa dhihi karta inuusan dareensanayn hadda wuxuu noo sheegay cabdurre inuu sidii wolf ula hadlay sidii yeyg inuu ula hadlay annagana ma rabnaa soo hadalno fadlan ha hilmaaminaya afartan qodob muhiim waa kowda hore waxaad aragteena ka hadlaysaan dareenkiina rabitaankiina iyo sidii loo xalin lahaa